Assalaamu calaykum asxaabteyda meel kastoo aad joogtiin kusoo dhawaada channelka Umu Axlaam Channel. Maanta maxay idiin wadaa walaashiin video kale oo cusub. Asxaabteyda caadi ma aha sheekada hala soo xaadiro dhammaantiin. Maasha Allah waxaan idiga mahadcelinayaa insha Allah kommentiyadiina quruxda badan iyo dhiirigelintiina sida kommentiga igu soo qortiin oo ay soo dhiirigelisiin. Maasha Allah waa mahadsantihiin dhammaantiin meel kasta oo aad joogtiin. Walaalahay asxaabta igu xiran aad ayaad u wanaagsantihiin. Maasha Allah tabaarakallah. Waa kana waxaan soo sameeyay rabaa dalac bilaash. Waxaan halkaan ku shubtay hal xabo oo basal aan soo jarjaray ana aadna u yaryareynin. Dhexdhexaad ayaan ka dhigay basashaada dabka ku hay brown markay noqoto ku soo darso suugada wax ka sameey lahayd asxaabteyda waxay ku sii doontaa dhadhan aad u wanaagsan. Basasha raashinka way kugu saacideysaa waxay noqonaysaa sirtaada nolosha wax waliba oo aad karinaysid asxaabteyda basasha loogu roonaado meel kasta oo aad joogtiin dunida daafaheeda insha Allah biidnillaahi kariim. Halkan waxaan ku haysaa bocor siinbe ama bocor gaduud sida u taqaaniin asxaabteyda iyo baradho. Maxaa kaloo ku soo dari doontaa walaashiin waxaan ku soo dari doonaa yaanyo aan soo fiiqay haddana miraha aan ka soo miiray ayaan ku soo dari doonaa. Maanta yaanyada ma shiidaayay yaanyada ayaan u yaray rabaa mar raba gaduud saaid ah. Waa kana yaanyadiyo wax yar ayaan ku dari doonaa shiidkana midka yarka bacda ku xiran ayaan wax yar ku soo dari doonaa asxaabteyda. Waa kana muufadeedii muufadan magaceeda haddaan idiin sheego aniga waxaan u aqaanaa muufa mashmash. Dadkana waxay u yaqaaniin qaybta kommentiga ha liigu soo qoro ama ha liigu reebo asxaabteyda. Muufadan waxaan ka sameeyay iyo sidaan u qasay mar kale ayaan idila soo wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Muufadan waa muufa aad u jilicsan oo u fiican dadka waayeelada ilmaha yaryar qof waliba waxay jeceshahay cunto jilicsan waa cunto aad u jilicsan waxay ku noqon kartaa quraac qado casho saa jeceshahay waqtiga rabtid ayaad ku tuuranaysaa insha Allah biidnillaahi kariim. Ani muufadeeda waa tanaa haddaad rabtid kalar cad ayaad ka dhiga kartaa aniga laakiin yellow waaye waxaan ku darsaday galeyda yellowga ah. Waa ujeedin kalarkeeda sida uu qurux badan yahay muufada indhaha ku yeelato. Maasha Allah ukunna waan ku soo daray caanaha waan ku daray wax dhan ayaa loo dhameystiri doonaa insha Allah. Qasitaankeeda insha Allah mar kale ayaan idila soo wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Idiga macaajisi doono asxaabteyda iyo walaalahay dhammaantiin meel kasta oo dunida daafaheeda ka joogtaan. Asxaabta waa kana maraqiina sidaan ayuu ku soo baxay. Hilib muxuu kala maqan yahay marka qudaarta kari sid waa kaasaas ayay kugu soo baxaysaa. Ma ahan mar walbo inaa hilib raadisid ama chicken ama malay markaas wixii gurigaada yaalo ee kaa soo qabato waxaada ka diyaarso wax waliba waxa waaye wixii guriga ku yaalo ayaa laga diyaari karaa. Basbaas cayriinka oo ujeedin suugadii sidan ayay ku soo baxday. Muufadina meesha kama maqno muufa mashmash ayadana aad ayay u jilicsan tahay dhadhankeedana aad ayuu u macaan yahay asxaabteyda. waa kaasaas sidaas ayay jilic u tahay saas ayay u gaduudan tahay. Maasha Allah tabaarakallah. Horta caruurta looma gaaro ilmaha wax ma cuni jirin ilmaha dadka dhaho waa ilmihii cunto diidka raashinkii loogu talagalay waa sirta nolosha asxaabteyda ha laga soo tuuro ha la siisto caruurta.
Caruurta ma jeclo waan is ognahay wax adag, laakiin waxay jecel yihiin waxa softiga ah oo jilcan oo sidii doolshadii camal u jilcan. Caruurta way jecel yihiin laakiin adeeg wixii ah looma dhoweeyo. Marka aad ayaad uga heli doontiin asxaabteeda biidnillaahi kariim. Share, like, comment.